السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waa garanaynaa shirkadda Netflix qisadeeda guusheeda, balse badankeen ma ognahay dhabta loo dhisay shirkaddan mise arrintu waa timir laf baa ku jirta. muuqaalo dhaqan, aragtiyo leexsan, jinsi isku tag la hormariyay waa saddexleyda ay adeegsadaan shirkad walba oo ku hoos bata inay faafinayso madadaalo iyo farxad. yoolka tobanaad waa inay lacag ka helaan muuqaalada ay samaynayaan. waa maxay haddaba himilada laga leeyahay sagaalka yool ee soo haray taasoo adduunka laga qariyay? waa tuma Netflix. waa maxay xiriirka ka dhexeeya iyada iyo ururada iyo madaahibta dahsoon? runtu Netflix ma shirkad filmaan soo saarta keliya miyaa mise baroorta orgiga ka weyn? weydiinta mudan isweydiinteeda ayaa ah waa maxay xaqiiqadeeda iyo hadafyadeeda dhabta ah? muuqaalkan waxaannu ka yara iftiimin annagoo ilgarofin ku eegayna qadiyadihii muranka ka dhex dhaliyay dadka dunida. waxaannu tooshka ku ifin Netflix taasoo ay maamule ka yihiin laba qof 1997kii gobolka California, gaar ahaan Silicon Valley. waxaa halkaa ka soo baxay laba qof oo hal abuur leh oo kala ah Mark Randolph iyo Reed Hastings. waxa uu Hastings ahaa mid xirfad u leh kombiyuutarada, iska lahaana shirkad la yiraahdo BioAtria taasoo Randolph madaxa suuqgeynta uga shaqayn jiray ilaa laga iibiyey shirkaddaas shirkad borogram oo la yiraahdo Rationale. hadafku waxa uu ahaa unkumidda shirkad filmaanta soo saarta, waana waxa dhacay 1998kii markay aasaaseen shirkad ay u bixiyeen Netflix. qacdii hore shirkaddu waxay iibin jirtay cajilado DVD ah oo filmaanta ku duuban yihiin, balse waxay shirkadaha aynigeeda kaga duwanayd dadka aqalladooda ay ugu geyn jirtay cajiladaha, iyadoo sidoo kale macaamiisheeda bille kaga qaadi jirtay qarashka cajiladaha. qarashkaas oo ka yara jabnaa shirkadaha kale. waxay soo kordhisay fikrad cusub oo aan lagaga horeyn oo ah in macmiilka filanka uu isagu dooranayo. fikradahan cusub ee ay soo kordhisay darteed ayay shirkaddu noqotay mid magaceedu uu baaho. waxa ay sheegtay jariiradda New York Times in shirkadda Netflix 190,000 oo cajiladood si maalinlaha ay ugu gudbiso 600 oo macmiil bishii. 2002 tiradii macaamiisha ku xirnayd waxa ay noqotay 1 milyan oo macmiil. 2005tiina waxa ay tiradu gaadhay 5 milyan oo macmiil. maalin walba waxay soo saari jirtay 43,000 oo cajiladood oo macaamiisheeda si maalinlaha ay ugu geyso. arrimahan soo sheegnay waa bilowga oo keliya. sanadku markuu ah 2007 waxay shirkaddu u sheegtay macaamiisheeda in barnaamijyada iyo musalsalada TV-yadooda ay kala socon karaan iyagoo ka soo gelaya barta ay netka kaga leedahay shirkadda Netflix. sanad kadib waxay shirkaddu ka yeewoysay inay heshiis la gashay shirkadda LG inay soo saarto qalab muuqaalo tayo leh soo saaraya, waana waxa soo jiitay dadkii isticmaali jiray markii hore DVD-yada iyo agabyo kale. muuqaalada sida tooska loo baahinayo iyo filimaan tayo leh waxay tirada dadka ku xiran gaartay 14 milyan 2010kii. tiradaas ayaa isla laabtay 2019kii iyadoo tiradu ay gaadhay 149 milyan oo qof. waxayna isu beddeshay shirkad iyadu musalsalada iyo filmaanta soo saarata. dadka badankii waxa ay u qabaan in shirkadaha waaweyn ee caanka ah hadafkoodu inay tahay lacag inay helaan oo keliya. tanina waa khalad. qofka hadalka yiri waa qof aragti gaaban. ma waxaad u malaynaysaa in qof uu ku faraxsan yahay inuu haysto jawaano waraaqa ah? si aan xisaabtan qaacidadeeda u helno, marka hore waa inay laba koo yihiin xaqiiqada iyo khiyaaliga. marka ay shirkadi dhalato oo waxa ay hiigsanayso ay soo taabato noqotana mid adduunkan saamayn ku leh, waxaa laga taageeraa dhanka dowladda dahsoon ama ad-dawlatul camiiqa waxa afka carabiga lagu yiraahdo, si ay shirkadaasi u fuliso qorshayaal iyo siyaasado dahsoon. qaabayn dowladdaasi dahsoon ay siiso awood fulineed, lacag, madaxnimo, taageerid dhan walba ah shirkadaha hormaray. taa beddelkeedana laga rabo shirkadahaas fulinta shaxda ay dejisay dowladda dahsoon, waxaana ay shirkad waliba fulisaa qorshayaal loo meeliyo oo kala duwan. kulligoodna waxa ay u rucleynayaan dhisidda boqortooyada ugu dambaysa. kulan toosa ay la yeelatay jariiradda New York Times mulkiilaha iyo madaxa ugu sarreeya ee shirkadda Reed Hastings afkiisa ayuu ka yidhi yoolka shirkaddu waa faafinta dhaqanka reer galbeedka, waana sababta ay dhaqan xumooyinka ay ka mid yihiin sinada iyo liwaadku ay ugu badan yihiin filimaantooda. qofka galaana uu doorsoomayo ilaa ilaahay qof u naxariista mooye. waraysigaas waxa uu ku sheegay inaysan shirkaddu tirtiri doonin muuqaalada dhaqan xumadaas ay ku jiraan. waa fariin cad oo la rabo in qofka damiirkiisa dhaqan xumadaas looga dilo, caqliga iyo caqiidadana looga ciyaaro. markii liwaadka, sinada iyo dhaqan xumooyinkaas lagu celceliyo loona gudbiyo qaab reer magaalnimo ah, cilmi baaris lagu sameeyey shacabka Mareykanka oo socotay muddo 10 sano ah
waxaa lagu ogaaday in tirada dadka khaniisiinta ogol inay bulshada ka mid noqdaan ay ahaayeen 1996 boqolkiiba 27. 2015kiina dadka ogol waxa ay gaadhay boqolkiiba 60. maxaad moodaa 2021 oo aan ku jirno? halkaa waxaad ka ogaanaysaa khatarta warbaahintu ay leedahay inay awood u leedahay qofka ay rabto inay soo saarto. 2010kii ayay shirkaddu bilowday inay baahiso filimaanta dhaqan xumada ee akhlaaqda ka fog. qarnigan 21aad qofka uma baahna inuu aqoon u yeesho cilmi nafsiga iyo faafinta kutirikuteenta. kaliya waxa ay sameeyaan inay qaybo qaab daran muuqaalka halka sac soconaya dhexdiisa ku dardaraan si uu u sii raacraaco muuqaalka kan daawanaya, kadib maskaxdiisa suntu ku beeranto oo caqliga baadinka la yiraahdo ku degto, markaana dhaqan xumadaas caadi ay la noqoto. waagii hore qoyska reer galbeedka ahi markii uu TV-ga isugu yimaado, haddii muuqaal dhaqan xun uu soo galo isla markiiba kanaalka oo dhan ayay bedeli jireen. haddana arrinku caadi buu la noqday oo damiirkii ka jirdiidi lahaa baa dhintay, waana waxa loogu badiyey muuqaalada muruxsanaanta filmaanta ku jira Netflix. sidoo kale waxaa jira duulaan qaawan oo lagu soo qaaday diinta islaamka iyo muslimiinta, waxaana ay shirkaddu bilowday samaynta filmaan ay jilayaan dad huwan astaamaha dadka muslimiinta, sida la bixidda magac muslima iyo dharkooda, sida haweenka oo xijaaban oo ay ku jilaan filmaanta, ragga oo gari weyn koofina qaba. filin dhowaanahan la soo saaray waxaa lagu jilayay gabar falastiiniyad ah oo muslima, xiriiro jinsiyana la yeelanaysa dadka ajnabi ah. sidoo kale shirkaddu waxay soo saartaa dukumiintiyo dad mulxidiin ah oo muslimiin inay yihiin sheeganaya, bannaynayna dhaqanka liwaadka ah. haddana dad badan oo muslimiina ayaa rumaysan warkooda oo meel iska dhigay hadalkii Ilaahay ee ahaa inuu halaagay tuulooyin raggu ay wax iska dayi jireen. arrinta ka sii khatarta badan ayaa ah samaynta filimaan iyo karakateero qofka diintiisa ka shaki gelinaysa, in ciyaar ay ka dhigteen wax walba oo muqadas ah oo ku saabsan daatada Ilaahay annagana qaybnaga ah. ayay reer galbeedku caadaysteen in muqadasaadkaas lagu jeesjeeso. waxay soo bilaabatay xilligii kacdoonkii Faransiiska, balse Netflix ayaa meel fog gaarsiisay ku jeesjeesitaankaas iyadoo soo saartay filimaan shaydaaniya, sanab caabudid iyo ilaah u shariig yeelid ah. waxayna ka rabtaa kan daawanaya inuu dareemihiisa u dhiibo, marna ka faraxsiiso marna ka murugsiiso, iyadoo sheekooyin bog ah u samaynayso waxyaalaha qaybka ee naga qarsoon iyo inay astaghfirullaahiye Ilaahay sawir xun ka bixiyaan. shirkaddu waxay kaloo faafisaa filimaan ku saabsan waxa afka qalad lagu yiraahdo pedophilia oo ah utaga carruurta yaryarka. waxay shirkaddu soo saartay filin ku saabsan gabar yar oo muslima oo reerkeeda ku gadoodaysa kadibna falaysa waxyaalo aan carabka lagu ballaarin karin. waxa ay bulshada reer galbeedka ahi markii ay dhaadeen arrinkaa ay bilaabeen inay ka mudaharaadaan Netflix dhaqan xumada ay faafinayso. xitaa bulshadaas tareenkii dadnimo ka dhacday ayaa u dulqaadan weyday sumaha ay Netflix faafinayso. waa nolol ay ruuxdii dhimatay oo qalfoof soconaysa oo keliya ah. Netflix waa tiir ka mid ah tiirarka ideoloojiyadaha xunxun lagu faafiyo, balse keligeed maaha. dhalinyarada koontada kaga lehna si billa ah bay lacag kaga qaadaa, waana waxa ku dhiirigelinaya wadida hawshaas duminaysa bulshooyinka. xanuunkii koronaha ahaa ee dad badan aqoonadooda ku xiray ayaa sababay in tirada dadka soo booqanayo ay korodho, lacagtuna laba laabmato. sidoo kale waxaa kula jira shirkado ay ka mid yihiin Prime Video, Disney Plus iyo kuwa kale. waxaan ku soo gunaanadayaa war filimaanta iska daaya oo booskeeda dukumiintiriyo iyo khudbado geliya. haddiina dayn karina filim walba oo aad daawataan il gorofeen ku eega oo duuduub fariimahaas ha u wada liqinina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.